soo aragnay aqoon waa u leeyahay madaxdooda iyo waxa ay rabaan mid awlaadna waxa waaye culimada oo sidaa qabta waqtigii jihaadka cilmiga tarbiyanka ay joogeen shuruudihii jihaadka looga baahnaa oo ay diinta xumeynayaan oo dadka xumeynayaan oo dalka xumeynayaan dhibaato horena ay naga dhaxayso wixii horena Itoobiya isku haynay aan ka heshiinin culimadu waxay qabeen inay jihaad tahay dhibaatadooda waa caday waqtiga ugu aawdooda waa soo gaabinaya waxa weeyaan shabaab Soomaali ma aha mana wadaan dan Soomaaliyeed ma wadaan waa rag la adeegsanayo ilmo yar oo duruufta u maartay ku qasabtay sidaan waaye waxaana wax looga qaban karaa dalka xumeynayaan diinta xumeynayaan oo maxaa tiraahday waxay xumeynayaan danihii ummadda iyo solidarity iyo isgaabskii xumeynayaan runtii waa cadow taagan waaye afrika Soomaaliya boqol joogtay loo boqol gaarsiiyay shabaab marka Soomaali maaha jihaad Soomaaliya ma mid labaad sidoo kale qaban karaa waxa waaye wax diintii waxa la sameyn karaa majmac ulama ayaa la sameyn karaa culimada afar shardiyana loo shardinaya midda koowaad marka koowaad waxay raadinayaan culimo ahliin ah oo aqoon fiican u leh diinta islaamka oo ilaahay quraankiisa laba goor ku soo arortaan ma laba aayadood oo leeyahay fasalu ahla dhikri kutub ta'lamun labada marka waxa ay ahlu dhikri loo baahan yahay taa in aalaadkii u leeyahay waa mid labaadna inuu ka kaatoomo oo nin isku filan oo shaqaysta uu yahay oo aan la diin hebel abdiila midda kalena waxay waaqac Soomaaliya inuu wax ka ogyahay midda kalena waxay dhibaato horay uu ummadda ugu geysato taabtay inay jirin oo ahay qof caafimaad qaba inuu yahay marka ayaga ayaanu ka dhageysanaynaa mastarka diiniga ah insha Allah saasa oo marka ma jiraan waxa hatta anigu waxaan joogay Umar Imaam Abu Bakar oo aqoonta aan diinta wada Xasan Daahir oo soo dadku nin caalim ah waxaan ogahay hal model oo diinta shariicada la isku xukumo baa la leeyahay mooy hal qoraal oo qoran nin liga dhow ma jirin hal qoraal ma aan haysanin oo shariicada habka loo tatbiiqinayo intaas ku soo عمر تاسو تاسو كدونتو حبا تاغي مركو هلا ابراهيم السلكي خدك هذا وحنا بينا انت لان عقبات او شيء عقبات تاعتها طبعا وعقبات نبو عقبات كل نقطه نبو عقبات كل نقطه اللي هو اسكو اركا كلكم دي شريك حسن ninkaas ku ka diiday inuu shakhsiyan u roko caqabad laakiin Soomaalida caqabadku ma inuu tagan waxay u ahayd jilaa shariifka xataa waxay jilaa شريف أحمد حتى وحكينا عواه إنه قابل شريف حسن واحد ووتر وجودمين برلمان إحنا مدحوين وكنا حيقولوا إنه شقيلو بهية ما كنا يطلع تصان وأي يعني كوحيان وإحنا كفر ما جيت إنه تنزلوا وحي طلع قوي وتصي لا ينهرب هاي حتى دي سيجو شريف حسن نسلا قارة يما بلين برا وقت كنا ويراوي واحد هو كلي أنت اللي بيبل في هذه الوقت قرالada maanta la soo qoriyo waxa kamid ah adiga siyaasiga doctor Adam Weydiyo sidii dhaqanka Soomaalidu ah hor looga hadlayay siyaasiyiintii hore in la iibsado lacagaba isticmaalo war akhlaaq soo baxda sheegaysa markaa in farmaajo uu lacag daawadayo dadkiisa iyo Soomaalida qaybaha kale u siinay si kooban arrimaha maxaa ما أعرف ما جرى كراي ما أنا أرجع لعب وقيمينايو أنا وحن قياسا يعني هذا شعبكم وبنبحة ومظاهرات إكرام هلو إذا فرنجين العكسي مو ملاينايو لكن دو دعك تقولون كلا أردنا كلا سوماليا وأرنتو إني عدك كسي شريران تهربا إني بحيان ومعقول سومالي وقربوا كمعقول ما لك إيه سلامات بوصفك سومالي جوين دولة مو ملاينايو حسب النموذج الديني وأوجي هاي سيدا هذا يكوي مادين فرصة ساعة كوي مت عندنا إن إحنا كجل الديني وأوجي هاي محل إذا هذا مو ملاينا فرماجن فرصة هذا سوق كوي مدينه قطعي لكن وحل ليه هاي ولا قطع بدنا مرة خاطر الله هذا وحتى هاي عك حد بعنا مركي عدينا برلمان كجوديه سا وحكي جرا إلا قطع حد بعنا ده قام كوت corruption وأنا معقول أرين أبيه كرو محل هذا أو كل واحد لعب كان تويتي عدينا ما أعرف لكن مرات خاطر وأنا على إنسياتين إيموريان والعجب حيان وأنا صامتي وأن أقول سؤال جيت إن إحنا أنا قاطر العجل يصير وموضوع السياسي لو عبد على فكرة لما يفجر وحلا وكان لحنا فيادان لقي يسمعوكي ثقافة ربضان ولقي يسمعوكي جستوي يبغوا خلقوا مري أنا هو صار واحد اللي سرع فيه ما يعد على البرلمان كنت لاسون في البداية إن حتى لصامر يقول يعني واحد شيء أصلا إن العكس اللي في عيد والبيوت لكن
bal sheegay in intuu shariik meel u diro uu lacag siiyo xaaf u siiyo markii hawshii ku macni ay fulin waayaan inuu hab kale ugu daro ilaa beritoona ayaa arrinta lagu dhiibaya hadii fulin waayo xataa inuu inta kale ugu daro si uu beri u soo noqdo shaqo u qabanayo waa waxyaabaha cadeen u baahan tahay run ahaantii tan aanu caawa halkan uga hadlayno oo ah markaa qaybaha had iyo goor Samadoon Radio arrimaha bulshada aan uga hadlo habeen walba waxaa ah bartamaha barnaamijyada aanu halkan kusoo qaadano ayaa ka mid ahayd caawa qaybtan siyaasadda ee ku salaysnayd markaa kacdoonkan Soomaaliya ka jira iyo afartii cilmi qaxootiga ay Soomaalidu ku yihiin bal aan ku siiyo Dictor maya waa fursad qaali ah aniga waxaan oran lahaa Soomaalidu mid ay u baahan yihiin oo mar walba khilaafaadkan kusoo afjari karo maadaama waqtigu uu noo yahay waxaan kusoo gabagabayn lahaa waxaa ogtaa telefishan haddaa maanta soo gadato waxaa u baahan tahay waanu ku fahamnay nin isagoo kaloo koobiya in la heli karo oo sida daacadda uu yahay aad u aragtay inuu jiro Soomaali yahay markaa in la heli karo aad weydiisay سيدي عمر هو قرم ما عيوكوها وحفلة عبد الولي وانو كفهمني كل أقولها بنرجع السياسي أمريكا اللي هي بريم مينستر كمان لبيد والشخصية واللدة والصومالي والضاعلة بل سنة ويدينه كذول وسوري وما تصنت يا عبد الولي وأنا وحقبة ولا هلي كرا وأنا كبو حان صومالي فرصة دي بيسان هلي sida uu helay fursadan maxaa Cabdullaahi maxaan farmaajo laakiin Soomaaliya waa ka buuxan dadka aqoon badan la helaya dadka khibrad badan la helaya kuwa sidoo kale daacada intoo kale waa la helaya marka waxayna dhiirigelinaysaa awal waxa laga yaabaa dadkaas inay jireen laakiin aysan soo degdegayno Soomaaliya ay ka baqaayeen inay yimaadaan in lagu dilo ay ka baqaayeen arrintaa uu furay waxay keenaysaa inay dad badan hadda ku soo diidadaan waa qacday hadda waxaan ku sheegayaa xamar dadka qurba joogta ee aqoonta leh ee khibradda leh ee soo galaya ee ilaa hadda hay'adaha dawladda ka soo shaqo doonanaya oo loola yahay meel laga shaqo geliyo aad ayay u tiro badan yihiin marka taa rajo badan ayaa jirta niyadda khayr u sheeg waa la helayaa dad badan oo wax qabta laakiin waxa muhiimadda ah waxa weeye shacab in la helo shacabka muhiima shacab haddii la helo dadkii waa la helaya waayahay waa 21 eber 993 waxaan ugu celcelinaynaa caawa khadka telefoonka cusub وانا بيجي وريسي لمبر كان من باف في النوم كان يقول راليه ولا تنيكو افرتنيكو ايبر سغال صدح waxaanu haynaalo filaya qof kale oo markaa khadka telefoonka ku jira aan ku soo dhawo Samadoon Radio idaacadda maanta afka Soomaaliga ee ka dhigsan caasimada dalka Norway habeen wanaagsan magacaaga iyo meesha laga soo wacay madane habeen wanaagsan walaal ku soo noqday waa Maxamed Xasan soo dhawo wala su'aal kale aan qabaa oo aan rabo inaan xildhibaanada iyo aan weydiiyo dadka kala duwan oo fikradooda dhiibanaya bal si kooban waa sida anoo soo koobayo wax qabadka farmaajo ayaa maanta oo dhan lagu celcelinaya marka ma la oran karaa nurcada wax ka wanaagsan sameeyay aan la buunbuunin waayahay su-aashaas labadaba khadka ku jira aan u gudbiyo nin mudanaha halkan nala joogo aan filayo inuu aad wax uga yaqaanay siyaasadii diliyahay bismillah walaalku suu leeyahay sax waaye nuur cabdi wuxuu ahaa colonel hore oo sharci yaqaan oo kasoo shaqeeyey maxkamadii maxaa tirahday maxkamadii sare ee dalka nin weyn oo khabiiran uu ahaa oo xafiis hore soo fadhiistay jagooyin kala duwanna kasoo qabtay marka nuur cabdi run ahaantii wax badan oo qabtay waryar oo hadda ka hor mar uu yiri ayaan aad ugu dhigay uu leeyahay markii ay Ethiopiaanku soo galeen 380,000 oo ciidamadii regular army Ethiopian ayaa soo galay dalka annagu waxaan qoday mucaaradka waxaan helnay xog rasmi ah oo ahayd maarag 380,000 inay markii koowaad soo galeen ciidanka Soomaaliya operation-ka ay ka qayb qaateen nuur markii la magacaabay wuxuu yiri ayagoo dhibkii u jiro dadkii la gowrgowracayo ciidamadii ay saareen wadankii
runtii way dhibaysay dhibaatada taagan marka inaan caytamo war iska sheego iyo 11 xafiis oo caalamka ku taala warqadaha Soomaaliya la geeyo inaan soo xiro marka waxaan doortay yiri inta Itoobiyaanka wax ka sheegi lahaa marjiinka ma jiro inaan soo xiro xafiisyada marka Nuur Xasan Xuseen runtii aad iyo aad ayuu wuxuu qabtay anigu haddaan markaa mucaaradkan kamid ahaa hadii aan markii fursad u heli lahaa waa inaan Nuur Cabdi la shaqeeyo marka Nuur Cabdi shuntii wuxuu qabtay Nuur Cabdi runtii waxbuu qabtay waxaanu ka hadlaynay Nuur Cabdi oo jirto siyaasadda runtii aadna u qiimo badan oo wadognahay Soomaaliya oo meel kasta uu joogay taariikhdaanu ka akhrinay waxaan raayay marshada sida qaaliga ay ku hawada naga dhageystay inta habeen walba hada barnaamijka arrimaha bulshada qaybaha ku soo qaadano waxaanu inta badan aanu door bidnaa dadka shacabka halkan dhageysta kuwa idaacada naga dhageysta qaar kale oo aanu si toos ah ula xiriirno cod aanu ka soo qaadnaa jira shiranu tagnay ayaa natiib wanaag waxaa si toos ah khadka telefoonka ugu soo hadlay barnaamijka dalka imika haysta Nuur Cabdi kii hore iyo kii kasii horreeyay kan caawinaysa Soomaalidu ay ka hadlayso aadna loogu banaan baxayo meel kasta oo Soomaali joogto ayaa shaqada telefoonka soo galay shirka gudihiisa qayb aanu ka qabanay hadalladii uu halkaas ka jeediyay ummadda uu ku hadlay ayaa mid ku haynaa qaybta kaydkiisa Soomaalidu radio ballan dhageysta kuwa hawada naga dhageystana anagu gudbin waa kan Prime Minister farmaajo السلام عليكم ورحمة الله. waan samay ilaa ay haddana waxaan ka tirsanahay kooxdii asmaraan ka tirsanahay xafiis shaqeeyaa noogu yaalo General Jaamac Maxamed Saalix oo hadda fadhiyo gudoomiyada waxaa noo ah Zakariya Xaaji Maxamuud ayaa noo ah waan shirnaa warba laakiin saas ay tahay anigu markii dambe oo aanu meesha isku habeynay oo aan dalkii aanu tagnay oo dalka Suudaan aanu ka soo tagnay oo dowladda Suudaan aanu heshiisyo soo galnay markii dambe qaab naga mid ah ayaa wax la wanaagsaday dagaalka laakiin uu dagaalka ay wanaagsanaa waayay sida awadeed ayaan uga soo tagay kooxdii taasoo tahay laakiin wali waxaan nahay koox ku arursan asmara koox ku arursan maxaa dalika uga hari maayo haddaan helo wax Soomaalinimada badbaadinaya uga hari maayo awadeed farmaajo waxaan u arkaa inuu ku habboon yahay baarlamaanka shanta boqol iyo konton kana arkaa lugooyin yihiin waa jireen markii laga soo tageen inay hadii qolka Yurub ay noo yimaadeen igeen kun ka dhignaa shan boqol mid dollar marka haddaan la helin baarlamaanka kooban qayb Soomaaliya خير سوما صعد waxaan filayaa diiri qof Soomaali oo markaa loogu jira khadka telefoonka inuu sugay habeen wanaagsan Soomaaliya radio FM 99 aragtidaada iyo fikrada aad ka qabto arrimaha siyaasadda caawadda hadalay hallo habeen wanaagsan soo dhaw wallahi magacayga Maxamed Xasan Baliila soo maxamed wallahi waxaan marka hore waa salaamintii dhamaan bahda radio Soomaaliya iyo martida sharafta loo maartay ugu soo barnaamijka ka soo qayb gashay dhamaan waa salaamintii سلام الله سؤال كان قبا سؤال شكوات أركتيه إذا أيان كهالله طلبات من سؤال بعروينا ويديو مرتبة ما يشفدينه أركتيه هدي عن ورما يورال كل مانسا وحامفلة وحاسكوه ونسكوت مع ذين بربلانكا ونباتنا كان حد عايد دولة ومعرفة الصوماليات فكرة بانكا دي لها او معرفتي هدي اي نقصو aniga aragtideyda marka hore shariifka waa madaxweynaha wadanka farmaajana waa ra'iisul wasaarihii wadanka waxaan filayaa marka hore inuu soo doortay amba uu la yimid Sheekh Shariif ninka la dhaho farmaajo kulley shicibna شريف صومة دوران فرماجنا صومة دوران وعدد أيه إسواتي أو أبا 4.5 كوي مدينة أبا كوي مدينة أول كله أبا مرايكا هجيسة أبا منو أفريقيا هجيسة لما كان خلالها الشعب كوها غيرها دورتين كان هاي سلطان بالله كان مجران محايا لدي كان ماشي ولا كان صديق حتى نفكي كان سراوه عكي إنه دلوه دولين مركز الشعب كهول وطالة ما بعشات أنا كفير ما عارفها محمد حسن صومالي ahaan arinta Soomaalida afarta cili caalamka ku nool milyanada ay u sare istaageen adigu waxaad aaminsan tahay cidii doortay hadii casisaha ka daba jagada aniga waxaan aaminsanahay maxal shariifka macalka meesha joogay waxa baarlamaanka iyo waxa isku sheegay waa dad la wato meesha la geeyay cid Soomaali geeyay uma jirto wala miyaa watay kula tahay waxa wato dad ku danaysanaya magacna u yahay
danahooda gaar ku bulshada dan Soomaaliyeedna meesha ma taal marka runtii fikradeeda aniga ka hadlo waana ka socono qofka kale aad su'aasha weydiin lahayd bal si bogsiisa su'aasha kale waxaan weydiin lahaa xildhibaanka meesha fadhiya ayaa si gaar u weydiin lahaa soo dhow hadalkiisa waxaa ku jiray Soomaalidu waa bislaatay oo maartay maanta si maartay qabiilkii wuxuushtii wixii qashinku ka baxay marka waxaan oran karaa taa weli Soomaali ma bislaan maxaa yeelay mutaahiraadka meelaha uu ka dhacay waa meelo kooban meelaha qaar hala dhawaa shabaab ayaa macnaha pressure star laakiin gobolada waaweyn sida Puntland oo kale maxamed daara bixi wala Soomaali bislaan waana ku fahnay badan santahay balaan bisoo ku gudbiyo نعم حسن وما سنتهاي سؤال شادي هدان كجوابه هي ميلاد كلام محوق دعوة بنتلا وكدعي هدان تجي سنين وزير كحجين كورفاقين بنتلان أنت شعبك حمر واحد وذن آد وكاجره شركة كهرنا وكهذلي شركة كذب وكهذلي هشيس كذب وكهذلي شعب بلد أو بنتلان أيات تاجر سنة وايري مركا أنا وحنقبا إني سنحمل كليه كوكوبنين قرب بلد الصومالية أنت شعبكو أنت إني كجود بين وحتى ويري شعب بلد إلى هذين ولد الناس وحول بو كقطع أنه فكر كنه وكذونه ثاني وقياس كرايو حتى الصومالي أنا لقيه كرادة كدوان أو قبا فكر كذا حمر لا وهي هذا ما صنطة محمد ما دقيت سكر وخد كي تلفون كي صمدوا فيه وكجر سلوا مرة عادي ما شاء الله نسوا قاعد يا نوشة تري نولدوا مرعي وبكرة حنسكتوا عيسان بكبارو وحنقتوا جيمين يفكر يو حركي لغضبا أبو بكر يضر عليه عقد كرب يرمى ويغا waxaan u taasay salaamiyaa mulsharafta iskuutiin meesha ugu horeeyay xildhibaan Cabdi Ali Abuyaan Wariye Umar Afay iyo Diiriye iyo adiga xasarado salaamullah waxaan markuu diimayaa fikirkaas iyo su'aal aan doonayna wadiye xildhibaan Cabdi Ali isaga shakhsiyaadkiisa fikirkaas wuxuu yahay in gargaarka ama kaalmada ay bixiyaan bulshada caalamku inuu noqdo mid lagu guumaysto ama lagu bedelo ummadda Soomaaliyeed inaanu noqon sababtoo waxaan u qabaa in dhegeysto ama la maqlo dareenka shacabka ama dadweynaha Soomaaliyeed waayo shirkan dambaala waxaan u arkaa inuu sii fogeeyo rajadii ummadda Soomaaliyeed marka aan fiirno shirkan qodobada la saxay waxaa ka mid ah in arrinta Soomaaliya lagu soo diro wadannada Rwanda iyo Tanzania iyo Brazil ay qayb uga yeeshaan ka go'aan arrimaha Soomaaliya taasoo fikir arrinta Soomaaliya wax ka dhigaysaa dad ama kaasi nin walba qaybtiisa qaadanaya waxa la ismidkii hore waa loo diblayay Kenya wadannada dariska fargelinta ay ku hayeen ee hore waxay keeni wadeen xal ummadii Soomaaliyeed ay gaaraan hogaamiyaasha Soomaaliyeedna ay noqdaan kuwo iyagu kala adeega marka tan waxaan dacwaa in dadweynuhu ay kacdoonkan ay wadaan ay ku taageerayaan ra'iisul wasaare Farmaajo oo ka qabtay la ogyahay 6 bilood ee dawladdiisa hore u gashay mishaar loo soo celiyo shaqaalihii dawladda in dhaawici ama naafadii dagaalkii 77 iyo isbitaal martina ku jirto mishaarooyin loo qoro jirid la furan naafadii waxyaabo badan marka ma qabo in gargaarkan hay'adaha caalamku ay inasiinayaan UNDP-da Soomaaliya gacmahooda soo gaarin in Soomaalida la guumaysto عدي علي اللي معنا سوشيال ميديا وحويان محل يجي إن أي هل موقف يشاء أما محكمة أو صحيح إن أي سوق لدى شو خلاف الديوي مدى الشرعية لا أو السورية أما كمرجعها أما رسمي عليه إن أي حل ولا سيكون أنا أقول ديو دكتور عبد العال أدبر ما سنتهاي صاحب ورنتا أنت أخذت تمشي هرب الدبلو وكورة أحسن هاي هذا دبوا في رسوا وحكي جرن كريسة واحد إلى دولتها أريمها الصومالية الدنيا بارو دولة عسوا كسو بيستا مركا أنت سوارين ساعة لكن أنا وحنا قبلتها وحلو جود بكرة ورمتا أنا الصومالية محلي هذا هذا إسبيك سنوير قالوا لنا قرب الجوك تاعي يا أنا وهل كان كتيجي أول مرة كان كل حاجة هذا كنت تمسكي سومالي قبيل كي دورتي معهني والنروي يمشان كتيجي صاحب بدر وهل كان جوا وعكوير هذا وح عرفتان مربون إمادة مشان وأنا صوب وخذه وحين هذا وحي أنجيل لنا شيء مشان أن أنجيل قرب بدر وقرب الجوج نواجهه وحكي له لو بذكر وحاول هذا أنا أسكت شان أو حاجة كوك قفود وأنا جينا يوم إذا ذكرنا قرب الجوج وعالم كم دافيس كل جوكته
haddaan midowno oo aan samayno arrin aan isku bahaysano inaan wax kaga bedelno gudaha baarlamaanka 550 arkaysid gudihiisa wax ka bedeli karnaa baarlamaanka mowqifkiisu wuxuu u midoobay markaa leedahay baarlamaankan mararka danaha laga hadlayo waa midooba badda ayaantii la damcay in la gato waa midoobay waa diiday ayadoo dawladanaga waaweyn ay lacago ku bixiyeen oo in dhulka Soomaaliya laga qaado ay isku dayeen baarlamaanka intuu midoobo dhinac ka maray hadda taa laga hadlayo baarlamaanku wuxuu ku midoobay 421 wuxuu ku mariyay arrinta hadda oo inkastoo khilaafka ay keentay leeyahay ay diidanayeen war sharciga noo degan yaa dhinac loo dhaafay qof jeclaysi xukunkiisa inuu isaga sii dheerato yaan jeclaysan marka baarlamaanku marar badan waa isku raaca hadday helaan mowqif Soomaaliya sida hadda shacabkan kicin oo kale baarlamaanku waxa uu yahay wuxuu matalaa shacabka aniga ima xukuma Sheekh Shariif farmaajan ima xukuma waxa ay xukuma oo wax iga bedeli kara codka shacabka way badi waxa aan matalayo oo dooranayo codka raadsan doono shacabka way shacabka hadii yiraahdaan halkaas aan u dhaqaaqayna ogaada aniga waxaan taageerino codka shacabka way hay waa 21 41 eber 993 oo nagala soo xiriiri kartaan Umar intaan ku soo gudbin su'aalo way badan yihiin qaar kale aan ku siiyo بس كيف تنكجوا هافليا وعم بلاقي أخذ في تلفونك نقف كل كجرو ولا ما يسولوا سمدون راديو FM 99.3 هذا مناسب سولوا ما حاجة في فردا ما سويش قطعة ونقلق قاضي الترجمة في فردا أو هذا نقول أيوة سيد عبد الله عود كذا هذا غالي أكثر ما أقول يا قاطع وسيدنا حيوي وهي عيسى سولوا وطني هو مرة قرية واحد تعجب قرية الله أنحرس غلالك يعطيكم وأهاني معانو ولا شيء حرون في دليل كعان أبوه القرني. شوية. إذا إهلبي وكتل شيء حاسي شيء عروض شيء ضمان سوالي وين. وحكى له أنا رأي أهان سوجي من لها ورثة نين استجاب الله وصوه يا محل ويجي نين استجاب الله وصوه يا وحلويدين يا وحلويدين واي إنك هذا مجلس في البرلمان ككتبته يا نور ويدا ملعب واي وحويا سوي هو شخصية هاي متعلمة ووحفر شيء ووحفهمها وكان في سيبا قلبا marka wuxuu isagu shakhsi weeyaa oo inoo qaban kara Soomaaliya aan lagu wareegin sababtu meeshay ka qurusan tahay in waliba waa ogyahay Soomaaliya سعيد بقى سواء ما عاقل سعيد راح يقفك أقوانت له هذه السؤال اللي هو لأنه أنت يعني أنا جي هذه وأنا جاهل هيا وحويدنا وأولي أمنا هذا كله خصوص الكل هاي خصوص إنه كوريان جدا وفويا وحويا منك ولا داريها يا وحالي بيسنو عدي وحويا هاي شخصي عندنا مغلق الله مغض نوي وكذا ويا رجل وحويا من ولنت جيدا يود وجهي تقوم عمله واحترام حاضر صادق وفكرة هانا الصومالي بطهاي كل دعاء حب لي منور ويتقطع أنا صومالي بناي صومالي فلازم واحد آمن سنتها ما أنت مجيء من وقت قبيل كثير صومالي أي شيء يعني الرئاسة الوطنية بحثنا ما أنت مجيء كثير نقطة بعد ما أنت كاتب وزولة دا يبدأ هناك لطيفة أدي أنا أقول سؤال وقت سيدنا خالد وقت ولد نقول أنا أقول سؤال الرمان عوا بلمس أنا أقول سؤال نحن نقول لي أقرأ شذا برايم مينستر كالدولك فرماجو إنه جدي وهيستمر كحكم وسي وصلنا كيلو قدر ولا شيء في جد على الصوماليين حالة نسبها هذا هو مصيبة قوة بابا وين بالله يود وين فرماجو يرادو الدولة قوة ما أنت جسد لبعضن كيسوا أي مصادف من هنا مصادف وحني شخصية جوزي جل بس كان واحد في ذاتي أنا قربان جلوه وقت في وراء نظرتين تصاحب كلام من عالم في دار عالمية واحد كثيرة وين
من كسر الصومالية وقربتنا أما تخيشي جنع سباء الفارو هلو كنتلو دولة ذاتنا يكمل عالم دول العالم فيه وحلة كثيرة هو اللي بحطوا بيكي $50 أما $10 كل أكاونت كل تسيح هذا مصر أيضا وقالوا ذا ويا سعيد الصومالي ماذا iyo khadka telefoonka ama soo gashay runtii aad baan u taagan halcelin fikradan ay lacag uruskii $50 meel lagu leeyahay waan qaadaynaa anagoo kala tashan doona awayanadan iyo siyaasiyiinta caalamka joogay kuwa hawada laga dhigaysanaya 59 iyo 9 iyo 3 wadama santahay Umar